waxa aad u kordhay dadka muslimiinta ee Rohingya ee ka qaxay dalka Myanmar waxayna gaadheen ilaa 270,000 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in korarkan badan ay qaxoontigu ay ugu wacan tahay in la ogaaday dad cusub oo meelo kala duwan ka qaxaya. rabshadaha ka jira Myanmar ee dadka lagu qaxiyay ayaa waxay bilaabmeen kadib markii kooxo wax iska caabin ah oo ka tirsan qowmiyadda Rohingya ay weerareen saldhigyo booliis. dadka Myanmar ka soo qaxaya ayaa sheegay in ciidamada militariga ay gubayaan guryaha isla markaasina ay dhibaateynayaan dad. dowladda Myanmar ayaa beenisay eedeymaha la xiriira in ay ku xadgudbayso dadka Rohingya waxayna sheegtay in ciidamada ay la dagaalamayaan kooxo fallaaga ah. dadkan soo qaxaya ayaa waxa ay galeen dalka Bangladesh iyagoo ka gudbaya xuduudda labada dal. xerooyinkii horey u jiri jiray ee qaxoontiga ayaa buuxsamay waqtigani. dadka cusub ee halkaasi gaarayana waxay degayaan meelo cusub. dadka qaarkood ayaa masaafo dheer u lugeynaya, qaarkood ayaa doomo ku baxsanaya waxaana kamid ah ilaa 300 oo qof oo doon ku gaaray dalka Bangladesh maalmadii Arbacadii.